kulankan ay sida wada jirka u qabteen maamulka degmadaasi Calaf Weyn maayir ku-xigeenka degmadaasi Calaf Weyn Maxamed Jaamac Libaan maayirka degmadaasi Calaf Weyn Cabdiraxiin Yuusuf Axmed iyo waliba Caaqil Aadan Jaamac oo kamid ah oqaasha degmadaasi Calaf Weyn ayaa xukuumadda Soomaaliland waxa uu fariin u direen in deegaanadaasi ay ka jirto xaalad biyo la'aaneed oo aad u daran kadib markii deegaanadaasi ay gabi ahaanba go'een ceelashii ay ka cabi jireen gaar ahaan ceelka degmadaasi Calaf Weyn ayaa waxay ka codsadeen in xukuumaddu ay la soo gaadho gargaar degdeg oo biyada ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmadaasi Calaf Weyn Cabdiraxiin Yuusuf Axmed iyo waliba maayir ku-xigeenka degmadaasi Calaf Weyn Maxamed Jaamac Libaan iyo Caaqil Aadan Jaamac Faarax waxaan ka sheegaynaa qayladaan dheer ka dhigayna biyo la'aanta ka tahay degmada Calaf halkan joogno ceelka Calaf wuu go'ay وعيل بيقرر بها أول صالح وما هين عندك كعبه أصير شدنت أو جين سمرك وحكي لو عندك كوا قرار بيعب شرين تيجي نفر بدن ودق مده هريره هذا وبرجي هذا يقلبيت كي حاجة بنك يو حاجة غوي كذا هريرك حيجنا ويكسي لي تنعرف في حاجة بيلانت ويكسي لي تلمان مود السومال الحكومة والمسؤوليات كسارن تاي تذكر كلام محسنين تا والبتشوجة biyo-la'aanta maanta dad fara badan baa xakeen karta in dad fara badan degmada gudaheeda ay haraad ugu baqtiyaan magaalada gudaheeda inta joogno in haraad lagu baqtiyo khatar halis loogu jira reemiga qorax banka ku hayso saasoo kale in haraad u baqtiyaan bay u dhow yihiin madaxweyne aan ku mahad celinayna hawshaad wado hawlqabadkaad wado kaaga mahad celinayna sida hawsha dowladnimada u wado waxa jiray mashruuci SDF ee loogu talagalay in magaalada Calaf lagu soo biyo geliyo markii sahamin fara badan iyo xog ururin badan iyo xuraan badan loo galay waxay fariisatay biyaha iladeed inay noqdaan biyo Calaf ka cabaan sahan badan baa la qaaday sarfay badan baa ku baxay dakhli fara badan baa ku baxay juhdi badan baa ku baxay cidii waday waan mahad celinayna waqtigii hadda ma hayno waxaan leenahay han loo dirdirgeliyo Calaf Weyn oo duruufo badan iyo dan badan ay heshay darteed wasiirka cusub biyaha maxamed muuse waxaan leenahay maxamed adigu xogaal bad u tahay Calaf Weyn wad ogtahay wax badan baad ka warhaysaa waa ku sugaysaa Calaf Weyn maanta dad biyaha joog adigu timi waxaan suniri biyo hadda idin imanayaan ceelka Calaf Weyn hadda waa la yaqaan waa ceelkii magaaladu ka cabi jirtay waa la arkaa sida ay hawshay ceelka biyo la'aanta uga jirto waxaanu kala u sheegaynaa dawladda Soomaaliland wasiirka biyaha iyo madaxweynahaba sanad walba waxa weeyaan biyo dhaamis ku qaylin maynee budgetkii loogu talagalay biyo gelinta ahaa ee Calaf Weyn ahaa SDF ka suuqiisa looga talagalay waxaan rabnaa in soo biyo geliyo sababtoo ah cidda hareeraha ku oomana Calaf Weyn way gaarsiin kartaa waa looga dhaami karaa iyana waa ku cabaysaa ceelkana waa ceel dabiiciyo dadkii ka batayo hadda ay markuu gaaro waa go'aadee cilmi on cable TV Calaf Weyn